dabaaldeg lagu xusay konton laba guuradii kasoo wareegtay markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo israacii gobolada waqooyi koonfur oo ku beegnayd sanadii 1961 Luulyo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway. Soomaalida ku nool wadanka Norway ayaa caadiyan isugu yimaada barxad aad u weyn taasi oo ay ku muujiyaan qiiradooda wadaniyadeed. waxaa sidoo kale xafladaas alaaba soo qaban qaabiya ururka haweenka Soomaaliyeed oo ka dhisan magaalada Oslo oo ay hormuudka u tahay Ayaan Yaasiin. dabaaldegani ayaa waxaa lagu soo bandhigaa hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo taariikhdii halgankii loo soo maray xornimadoonka Soomaaliyeed ayadoo dadweynaha Soomaaliyeed ay halkaasi ku soo xirtaan dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay gaarka u leedahay iyo dhar ka turjumay xornimada iyo muuqaalka uu leeyahay calankeena quruxda badan. waxaa dabaaldegani kasoo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha madaxa waaxda socdaalka Soomaaliya iyo Cabduqaadir Boolay oo ka mid ah dadka farqutiriska ee ka haray xisbigii SYL ee u soo halgamay xornimada Soomaaliya oo ay Soomaaliya ku naaloonaysay muddo 30 sano ahayd. waxaa sidoo kale goobtaasi kasoo qayb galay aad u fara badan oo magac iyo muunad iyo miisaanba ku leh dalka Soomaaliyeed. waxaa khudbadii halkaasi laga jeediyay qabiilka lagu dagaalamayo iyo waxa lagu dagaalamay qaraarka ay leedahay wuxuu yaqaanaa midnimada Soomaaliya waxay ahayd wuxuu yaqaanaa calankan waxa qiimaha oo ku fadhiyo iyo dhiigga ku daatay wixii ku daatay sidaas awgeed ummadda Soomaaliyeed oo maanta meesha iskugu timid horta waxaan u rajaynayaa cumrigooda Ilaahay inuu dheereeyo sanadka bisheeda Ilaahay inuu gaarsiiyo hambalyo iyo taariikh wanaagsan Ilaahay inuu siiyo إلهي تفرارقنا إنه كساره ودبعتنا يكجرنا إلهي إنه كساره نينك السنة مراد كسي الله وسهله أنت سبحانه يوهليه إنا يدين كسر دوي ميكروفونك عبد القادر علي بولاي. السلام عليكم ورحمة الله. هو كستاء الصومالية كوين يهوري وهلقا قصود علي دهب كودي يو نفتودي وهي أهرين إني حرنمو عرورتودي حرنمو إني قارسيان يا يهورين ما أنت أنا وادو جيدان رير هبلا هل لقد دايو أمد الصومالية وحان ليهي إلهي كبقى إسلاما هاي هل الميدوغو مدني ماذا بليز سوغو ملاي بنان Hatmarkina tarderane targera waligine. waxaa sidoo kale halkaasi khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa ka jeediyay wasiirka amniga qaranka ee dowladda ku meel gaarka ah Soomaaliya Cabdisamed Macalin Maxamuud. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ومستقبلك أو أمد الصوماليات وفيوتشر كان سوينا أو أحدث كان سوينا وطنك بالبادية وإنتي ناني إن لمدها وحال نكربها وطن كينا صوب وقتان وقت أنا وحنوقنا هاي اللي بتشرو فسحي سكولات كان بتشرو إلى اعتمادان وطن كي وأسوارك تانوحا كتشرة وأسواف بيرسال سيد أبنينا كلاتا أولاليين الصوماليات وميشي تشرو بعضو عاوني لهايدين يسيد أفكال وقيسان لهايدين ودمشتي waxaan rabaa inaad ii rajeeyo ciid wanaagsan meel kastoo Soomaaliya ay joogto waxaan rabaa inaan u diro tahniyad maanta inta waa 2 July oo ah maalin qadarin weyn leh oo maalin qiimo weyn ku fadhisa waxaan rabaa inaan u diro tahniyad meel kastoo joogtaan guul baan idin rajeynayaa Soomaaliya meesha soo guul baan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay madaxa waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha sareeye gaas Cabdullaahi Gaafow Maxamuud. meel khayaaran ku sheegay waxba ma jiraan qof aan cilmiin ma jiraan qof kasta waxa ku dadaalaya inuu meeshiisa dhalinyarada magaalada xamal joogtay muraalkooda waa soo noqday way ficnaayeen haddayna kubadda cayaara la bilaabay in badda lagu dabaashaa la bilaabay nabadii waxaa caruurteeda oo aan jeclahay gabadheeda muntaas iyo wiilkayga munasar ayaan salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa hooyaday Caasho walaalahay dhammaan inta magacayga muuqayga taqaana. waxaana sidoo kale salaamayaa Farxiyo oo 8 sano igu dambeysay iyo Axmed Taajir oo saaxiibkay qaaliga ah
sidoo kale waxaan salaamayaa malyuun isku soo wada duubo maalinta 1 Luulyo oo shacabka ku nool magaalada Oslo ay isugu yimaadaan goob loogu talagalay ayaa sanadkani lagu dhigay goobihii caadiyan lagu dhigi jiray iyadoo lagu qabtay goob lagu magacaabo Sofian Park oo ku taala bartamaha magaalada Oslo. Axmed Taajir TV-ga caalamiga Somalisat Oslo Norway.